الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مظاهر وسطية الإسلام وعدالته، muuqaalada qur-aanka iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sheegan, waaqica diinta islaamkana ka dhex muuqda ee tilmaamaya dhexdhexaadnimada iyo dheeli la-aanta diinta islaamka. iyo wasatiyatulislaam waxay ka dhex muuqataa cadaaladda. laakiin ma huwa mafhuumu alcadaala fi lislaam? mafhuumka cadaaladda iyo suuradeeda dhabti waa maxay islaamka dhexdiisa? cadaaladdu maaha sinaasho. mararka qaarkood bay simistu cadaalad darro noqotaa, mararka qaarkood ayay sinaan la-aantu cadaalad darro noqotaa. marka maaha micyaarka miisaanka iyo halbeega cadaaladdu sinaansho maaha. adiga iyo ilmahaaga in laydin simo miyaad ogoshi? alwaalid walwalad. ama adiga iyo waalidka in laydin simo oo isku si waxa weeyaan laydinla dhaqmo, waa maya. in la simo qofka daalimka ah iyo qofka madluumka ah miyaad ogosha? oo la dhahdo waad muran badantihiin labadiinaba jeelka gala. sinaansho cadaaladdu waa saas, sinaanshuhu saas u keensanayaa. ma ogolid. cadaaladdu waa icطaa kuli dii xaqin xaqah wa inzaalu kuli insaani manzilatahu allaa'iqata bihi. waa mid walba wuxuu xaq u leeyahy in la siiyo. qof walbana in la dejiyo mansilada, martabada, darajada isaga ku habboon. taasaa cadaalad la yidhahdaa. markii gaalada iyo gaalo raacu ay cadaaladdii ka dhigeen sinaanshaha, xataa way dabaqi kari waayeen, waaqicii bay ka dhigi kari waayeen. waaqici kama dhigi karaan oo ma simi karaan. tusaale ahaan mushaharka uu qaato madaxweynahoodu, diyaaraddu fuulayo, gurigu gelayo, gaadhiga uu wato, ilaalada uu leeyahay, iyo intaaba inta uu ka helayo qofka shacabka ugu hayar ma simi karaan. haddii la idhaahdo alcadaala waa almusaawaat, xataa waaqaca wax ka xaqiiqoobi kara maaha. cadaaladdu waa mid walba in xaqiisa la siiyo. hada cadl اllah. mid walbana waa in mansilada iyo darajada ku habboon abuur ahaan iyo sifa ahaan iyo aqoon ahaan la dejiyo. haddaynu dhahno ka warama, cadaaladdu waa sinaanshaha ee muftiga caalimka ah iyo jaahilka aan xaraf aqoon isku si diintaa looga dhegaysto, fatwadaa looga qaato. haddii kale aynu simi weyne aynu dhahno waxaynu fatwada ku hormarinaynaa caalimka, jaahilkana waxba weydiin mayno, waa cadaalad daro. hada caynu ulm, waa dulmiga laftiisii taasi. walihaada dadka u qaatay cadaaladdu inay tahay sinaansho mulaqa, mar walba in la simo wax, sidaynu sheegnay waaqac way ku xaqiijin kari waayeen. mar labaadka markay iyagu miisaanka noocaasiya qaateen, waxyaaba cadaaladii lafteedii ah ayay islaamka ku dureen. haddaan tusaale usoo qaato qadiyat lmara, waxaa rag iyo dumarka waa in la simay yidhahdeen. haddii la simi waayan waa cadaalad daro. islaamkuna cadaalad daro ku shaqeeyaa, rag iyo dumarka ma simo. waxaanay u qaateen in jahligooda awgeed in islaamku mar walba ninka uu gabadha ka saraysiiyo fii kuli shay. wa hada hayru صaxiix wagayru waaqici islaamiyan. islaamku xaaladaha qaarkood ragguu saraysiiye, xaaladaha qaarkood dumarka, xaaladaha qaarkoodna wuu simayba. mid walibana waa sidii xaaladda ku habboonayd. rag iyo dumarku waa laba jinsi oo kala duwan. mid waliba wuxuu leeyahay khasaa'is, waxyaaba uu la gaarya iyo xaalado isaga u gooni oo kan kale aanu la wadaagin. haddii la idhaahdo ha la simo, khasaa'ista iyo mumayizaadka ilaahay abuur ahaanba u yeelay oo meesha laga saaraya. sinaanshaha noocaasa ee lagu tiraabayo lagu baaqayaana wuxuu noqonayaa mid ay xumaani ka dhalato. waana sida ku dhacday kufaarta yidhi ragga iyo dumarka ayaanu simaynaa, oo marna raggoodii dulmiyey, marna dumarkoodii ku tacadiyey.
وهلك لا وحبان وطرينا رجال وقارسينينا أي dumarkii ay ku rideen god madow oo dulmi fara badanna dumarkooda ay ku dhaceen iyada waaqici baan ahayn waaqici ma baahaba musaawaadka ay ku baaqayaan rag iyo dumarka mushaharka gabadha iyo ninku Mareykan iyo Yurub midna ma sinna iyagoo isku jaamacad ka soo baxay isku aqoona isku shaqo qabanaya fayna musaawaadki ma hadday simayaan mee dhinac walba ka simaano yiraahdaan ninkuna waa inuu sanad dhalo gabadhu waa inay sanad dhasho hadday cadaaladdu musaawaadka tahay xamar walba ruuxa dumarka u xambaariyay 9 bilood ay culayska ilmaha iyadu ay u sidaa hadhowna uu leeyahay aabaan oo ahayo uu la sinaanay ama manfaacadiisi uga badsanayaaba waxaan waaqici ahayn sinaanshaha ay sheegayaan islaamku wuxuu eegay illa ilaahay baa abuuro ala yaclam man khalaqa wa latiif al-khabir cid ka taqaanaana ma jirto wuxuu eegay labadan jinsi oo rag iyo dumarka mid walba khasaa'istiisa qaab dhismeedka jirkiisa fikirkiisa aqliyadiisa xamaaskiisa awoodihiisa waxaas ku saleeyay qaybinta arrimaha loo qaybiyo rag iyo dumarka taana waxa ka dhashay wixii isku mid ka ahaayeen inay ka sinaadaan oo imika la oran maayo raggu ha soomaan oo dumarku yaanay soomin waayo waa wax ay isku mid ka yihiin arrinta noocaasi ah laakiin jihaadkii oo kale islaamku ku kala duway raggii buu ku waajibiyay dumarkiina kuma waajibin waayo hawsha jihaad la yiraahdaa waxay u baahan tahay ayaanay rag iyo dumaru ka sinayn infaaqi oo kale wuxuu saaray biilintii iyo kharashka reerka bixintiisii ragga dumarka iyaga hawsha arrinka waa laga qaaday oo waa laga riday waxaanay ku binaysan tahay yani khasaa'ista waxyaabaha ay la gaarka yihiin iyo qaraa'ista ilaahay ku beeriyo awoodaha ay leeyihiin ayay ku dhisantahay wax la iska yidhi maaha وهكذا waxyaabo waxa jira dumarka loo xalaaleeyo ragga laga xaaraantimeeyay waxay moodayaan mar walba islaamku inuu xagga ninka u xigo dahabka iyo xariirta dumarka waa loo xalaaleeyay raggiina waa laga xaaraantimeeyay hadday rag wadaadaan ka waramo waa cadaalad darro raggana ha loo xalaaleeyo waxaan leeyahay cadaalad darro maaha adigu haddaad nin tahay dahabkii xariirtu kuguma habboona shakhsiyadaada iyo ninnimadaada wax yeelayaan xidhashaad xidhataa laakiin ruuxa dumarka wax ku habboon weeye oo wuxuu taraya oo kaabaya oo dhammaystiraya marka islaamku cadaaladiisu maaha sinaansho oo sinaansho cadaalad darru noqda marar badan waa mid walba xaqiisa in la siiyo haddii wax la qaybinayo hadday takaaliif tahay iyo hadday tahay waxa weeyaan arrimaha kaleba mas-uuliyaad hadday tahay waa in la eego labadan qof mid walba maxaa ku habboon yatana mid walba wixii ku habboonaa loo sharciyo lagu waajibiyo laga xaaraantimeeyo mas-uuliyaadkiisa lagu daro qadiyadda imee ku saabsan in ninka laga dhigay mas-uulka reerka oon la odhan ninkiiyo gabadhu way u siman yihiin maamulka reerka maaha cadaalad darro laakiin dadka cuquushoodu foorartaa cadaalad darro u arkaan waxaynu leenahay reerku waa muasasa waa kayaan jira weeye oo sidii shacabka oo kale ah ama shirkad oo kale ama muasaso oo kale ah haddii la dhada ka warama waa tusaale shirkaduhu yaanay yeelanin maamul waayo waa cadaalad darro inuu qof madax noqdo dadka kale uu ka sarreeyo inta kalena ay noqdaan kuwa madax loo yahay cadaaladdu waa sinaanshaha dadku ha wada sinaadaan oo ra'iis iyo mar-uus yaanay kala yeelanin waxaas miyuu yahay wax caqligu uu aqbali karo ama waaqaca ka suurtoobaya ama la dhaha muxuu hebel madaxweyne u yahay hebelle uu yahay mid madaxweyne loo yahay dhammaan madaxweynaha la wada noqdo si loo sinaado miyay noqonaysaa wax caqliyan saxa ama waaqaca ka suurtoobaysa ayib reerka laabudda waa inuu yeesho sida shirkadaas ama muasasadaas sida dowladda iyo shacabka cid maamusho waa inuu yeesho ilaa haddii la dhayaana cidibo maamuli reerka gebigiisaba oo dadka jooga ha wada sinaadaan xagga maamulka iyo kala dambeynta waxaa fawda meesha imanaysa qoyskaasina uu burburaya marka labada qof midun ba wax maamuli la islaanta maamuli lahayd ama odayga maamuli la soo ma ilaa laba maamul oo siman ma wada noqon karaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu eegay ilaa isagaa abuuray ninkiiyo gabadhaba qaab dhismoodkooda qaab tafkiirkooda wuxuu qawaamada iyo maamulkii u dhiibay ninka alrijaalu qawaamuuna cala nisaa laakiin qawaamada hogaaminta iyo maamulka ninka la siiyey ma aha
mid ay la socoto adoonsi oo qawaamatu rajul cala almar'a laysa min baab isticbaad adoonsi maaha manaha ku taagsi iyo dulaysi bal waa min baab tashriif lilmar'a in mas-uuliyaddii ninka la saaro biilkaadaa lagugu leeyay oo meherkaadaa lagugu leeyay oo reerkana adaa ka mas-uulo waa inaad difaacdo haddii lasoo weeraro cirdigooda meel lagaga dhaco la doono xataa haddaad dhimanaysa waa inaad difaacdo gabadhiina hawlo kaloo ku habboon loo diray gabadha arrintaasi dullinimo kuma maxay u tahay sharaf bay u tahay haakada alislaam ya cibaad allah diinu wasat wa diinu cadlin laakiin wuxuu u baahan yahay faham buu u baahan yahay waxaan masaa'isha ugu celcelinaya kufaartu iyo mowqifka islaamka ay ka taagan yihiin iyo shubahaadkoodu weligeedba wuxuu ahaa wax la yaqaano macluuma laakiin maanta waxaa farabatay dad islaam ahaan jiroo noqday mulxidiin islaamka dacaayadeynaya shubahaad ku furaaya la dagaalamaya kuwa islaam ahaan jiroo qaatay mabda alcalmaaniya waa mabda kufriya gaalnimo ah waa diin oo dhan in fara laga qaado oo adduunya un loo jeesto ku saabsan oo iyaguna islaamkii dacaayadeynaya shubahaad ku furaaya waxa uu u baahan yahay markaa qofka muslimka ahi inuu diintiisa aqoon u yeesho si uu shubahaadka uga difaaci karo isaguna uu isaga difaaci karo diintiisa kuwa waxyeelo dhaawaca aanay u noqon